بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa iga yaabiyey u samafalka waalidka ee islaamka. Ereyadan hordhaca u ah qisadeenu waxay ka soo baxeen haweeney u dhalatay dalka Mareykanka. Sida ay sheegtay markii ugu horeysay ee ay maqashay islaamka oo laga hadlayo waxay daawatay baahin TV oo laga hadlayo islaamka. Waxay tidhi aad ayaan ugu qoslay sababtoo ah waxay ahayd qof aan hore u maqlin macluumaad ku saabsan islaamka iyo muslimiinta. markii ugu xigtay ay macluumaad dambe ka heshay islaamka waxay ahayd maalintaasi hal sano ka bacdi iyada oo ka sheekeynaysa maalintan dambe sida ay ku maqashay islaamka iyo cidii ay ka maqashayba waxay tidhi waxaan ka shaqeyn jiray cusbitaal dadka lagu daweeyo maalmaha kamida anigoo cusbitaalkii jooga ayaa waxa dhakhtarkii yimiday nin iyo gabadh isqaba oo wada ruux dumar ah oo xanuunsanaysa gabadhu waxay fadhiisatay ka soo horjeedka miiskii aan ku shaqeynayay gabadha waxa ka muuqday daal murugo iyo warwar badan ilmada dhabanadeed ka dareeraysa ayay kolba gacanta isaga tirisay markaan in cabaar ah u fiirsaday dareenka naxdinta leh ee gabadhani ka muuqda ayaan markii dambe si faduulnimo ah u weydiiyey mushkiladda haysata iyo sida ay wax u jiraan waxayna ii sheegtay inay la socoto ninkeeda oo wada hooyadii oo xanuunsanaysa isla markaana ay ka yimaadeen waddan kale afadan waxa ila hadlaysay iyadoo oo ooyeysa sodohdeeda ilaahay uga baraysa caafimaad iyo fayoobaan runtii aad ayaan ula yaabay gabadhan waxay ka timid waddan fog waxayna la socotaa ninkeedii oo wada hooyadii oo bugta ana waxaan xasuustay hooyadii rumaad oo ay igu dambeysay muddo 4 bilood ah oo aan quraarad cadar ah hadiyad ahaan ugu diray sababtoo ah waxay ku beegnayd maalinta hooyooyinka adduunka intaa wixii ka dambeeyayna war iyo wacaaltoona kamaanan helin xataa lamaanan xidhiidhin guud ahaan bulshada reer galbeedka qoyska waalidka iyo qaraabada agtooda macno badan kuma laha waxaa laga yaabaa in waalidku uu ilmihiisa dayriyo isagoo yar ilmuhuna aanu dareemin qiimihii waalidka sidoo kale diintoodu ma aha mid aad ugu dhiirigelisa xaqdhowrka iyo xushmadda waalidka halka diinteena islaamku ina fartay inaynu waalidkeenna aad u daryeelno gaar ahaan markay gaboobaan xaqa waalidku agteenna macno weyn ayuu ku leeyahay wuxuu ku xigaa xaqa alle inagu leeyahay kolka gabadhan la yaabku ma laha inay hooyadeed 4 bilood moogan tahay weliba xilligani ay ku xasuusatay maalinta hooyooyinka adduunka oo ay warbaahinta ka maqashay si kastaba ha ahaatee gabadhani iyadoo inoo sii wada sheekada waxay tidhi ninkii iyo xaaskii waxay 24 saacadoodba dul fadhiyeen islaanta waxaa intaasi dibadda kaga imanayay wicitaano iyo telefoonno lagaga wareysanayo caafimaadka iyo xaaladda ay hadda ku sugan tahay waxaa aad iiga yaabiyey qiimaha islaantani dadkan u leedahay iyo sida ay dhammaantood ula dareemayaan xanuunka waxaaban gaadhay heer aan ku hinaaso habarta nasiibka badan maalin dambe ayay gabadhii kula kulmay qolka sugitaanka ee dhakhtarka anoo fursadda ka faa'iidaysanaya ayaan markiiba weydiiyey su'aalihii iigu mudnaa ee ku saabsanaa islaantan iyo sida cajiibka ah ee ay ehelkeedu ugu xidhan yihiin gabadhu waxay iiga sheekaysay xuquuqda uu islaamku siiyey waalidka sida ay muslimiinta waajibka ugu tahay inay xaqdhowr iyo ixtiraam u hayaan waalidkooda sida diintu muslimiinta ugu dhiirigelisay daryeelka iyo xanaaninta waalidka kolkay gaboobaan markiiba waxaa aad ii soo jiitay qadarinta heerka leeg iyo sharafta uu islaamku siiyey waalidka dhowr maalmood kadib islaantii waa ay geeriyootay inankeedii iyo xaaskiisina aad ayay uga naxeen waxaan xasuustaa inay aad ugu dul ooyeen sida ubadka yaryar oo kale markasta waxa ay hor imaado lamaanahan waxa kale oo aan kolba xasuustaa xuquuqdii uu islaamku siiyey waalidka ee ay gabadhii iga sheekaysay muddo yar kadibna waxaan xarumaha islaamka ee dalkayga ka codsaday inay siiyaan kitaab ka hadlaya xuquuqda waalidka waana la isiiyey kolkii aan kitaabkii akhriyey waxaan galay caalam kale oo riyo ah waxaan niyeystay ama sawirtay anoo waalid ah oo dhalay carruur badan oo i jecel iina samafala iyagoon mushqaayad iga doonayn aniguna aan u duceeyo riyadan quruxda badan waxay markii dambe igu kaliftay inaan islaamo anoo diinta islaamka ka aqaana xuquuqda waalidka oo keliya waa ilaahay mahadiye sidaasi ayay ku islaamtay gabadhani iyada oo shayga keliya ee islaamka ka taqaanaa yahay xuquuqda waalidka waxaa guursaday nin muslim ah waxayna u dhashay ubad badan oo kuwii ay rabtay ah inamadeeda midka ugu weyni waxaa la yidhaahdaa cabdulmelik iyadana waxaa loo yaqaanaa ummu cabdulmelik